shirweynihii guuleed laba oo in muddo ah la sugayay in uu ka qabsoomo magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa ugu dambeyntii maanta halkaasi ka furmay sida uu ku faahfaahinaya warkan Maxamed Saalax oo nooga soo diray shirkaasi munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay isla markaasna lagu daafurayay shirweynaha dhaqan ee guuleed labo ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka Xingalool Suldaan Saciid Cabdisalaam Suldaanka guud ee bilaha Sanaag Yaalaan nabadoono cuqaal waxgarad isimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay madasha lagu daafurayay shirweynaha dhaqan ee guuleed labo Suldaan Saciid Cabdisalaam Jaamac Axmed Cabdi Caaqil Cawad Cali Dalaf iyo isimo kale ayaa madashaasi hadal ka jeediyay ilaa maantii shirkaasi bilaamay ama qabanqaabadiisu bilaabantay dadweynaha reer Xingalool heer gambe waxayeen maantana waxay soo gaarsiiyeen halkan aynu maanta joogno furitaankiisii iyagana dhammaantood waan u mahadnaqayaa inay muddo aan ka yarayn 6 bilood buu soconayay waxa jirtay waqtiyo uu dib u dhacay oo duruufo keeneen sida rabadaantii oo kale in la isu yimaado iyo duruufta waqtiga aynu ku jirno maanta Soomaaliya waa duruuf adag waxay laga maarmaan tahay in la iselo la wada tashado dadkani danahooda iyo arrimahooda ee ka tashadaan inta maanta ka soo qayb gashay waxa weeye intii maanta ka talin lahayd aayaha iyo dadka guud ee mandaqada run ahaantii xajandaha oo kale waxaan u malaynayaa inaan wax madmadow ku jirin ama waxa goldoloola oo qof kasta uu dareen ka muujiya aanay jirin shirkana waa shir dhaqan waa shir ay dadtooda iyo aayahooda ay kaga sashan doonaan ummadan deegaanka Sangeli waxa magaciisa la yiraahdaa Warsangeli weyne beel waxa sheegan kara qoys yar waa dad qarana weeye meeshana waxa duubanaysa saxaafadii cid kasta maanta waa jooga waxa Soomaalidu ku maamaadaa warna meel dheer buu ku dhacaa dhagaxa warna meel dheer buu ku dhacaa dhagaxa meel dhow illa amaano ummadda joogta uma baahna Ilaahay baa amaanay nin Ilaahay amaanay amaan bil aadne uma baahna aniga ida amaanay maayo hadii Ilaahay baa idin amaanay rag iyo haweenba oo burwaqada iyo quruxda iyo wanaagga saalayday ka buuxi marka aniga amaanta waxba idin tarimayso waxa Ilaahay u xabdeynaa Ilaahay sida inoo badiyay rag iyo dumar oo shaqo inoo yeelay oo shirkaas u soo camiray magaca shirkadda gayigeena Golis Telecom Somali soo dhaweynayna gacmo furan oo diiran maadaama beelweynta Warsangeli ay shirku leedahay degmada Xingalool ayna ka mid tahay macaamiisha Golis sidoo kale intii ay socotay xafladda furitaanka shirweynaha dhaqan ee guuleed labo ayaa lagu soo bandhigay suugaan kala duwan waxaana ka mid ahaa gabaygan iyo abwaan Mursal Saciid Cali Warsangeli gurboodiyo dhalaan waa guraacanteene Warsangeli gurboodiyo nin weyn waa guraacanteene gabal baa idin dumay sidii gorayaadii hawde gayigiinni suumaanta yahay geeska waraheega gaadhiga socdaa uma galbado garabaa rawtiine waxa laami goonyaha maree lagu gardaadsiiyey inta goof mandaqadiinnu tahay waa ka garanuuge raf baa idinka waxay oo keliyihii waydin go'ayiine dekad guryo laga dhoofiyiyo maleegasiinkiye gaadiid xamuul qaada oo goosha laga waaye guri maanta lagu soo tubado oo la galo daaye si kastaba ha ahaatee waxaa maanta si toosa uga furmay magaalada Xingalool shirweynaha dhaqan ee guuleed labo kaasi oo in muddo ahba la dhowrayay Maxamed Saalax Somali Channel magaalada Xingalool gobolka Sanaag